السلام عليكم كلتو عنا wanaagsan meel kasta dunida joogtaan soo dhawaada mowduucan kooban waxaan ka hadli doonaa 5 shaqo oo muhiim ah oo beerku ku qabto jirka iyo guud ahaan sidoo kale noolaha waxa kamid ah inuu sumaha ka saaro marka laga hadlayo jirka gaar ahaan sumaha qofka soo raaci kara xubnooyinka sidoo kale dawooyinka qofka marka uu isticmaalo inuu qayb ka qaato soo saaritaanka waxa loo yaqaan borotiinada kuwaas oo muhiim ah noolaha tusaale ahaan oo kale borotiinada xinjiraya dhiigga sidoo kale beerku wuxuu dheeli tiraa sokorta dhiig wareega haddii ay ku badato waa la kaydiyaa glucose sidoo kale haddii marka ay yaraatana waxa la soo daayaa waxa loo yaqaan glucose si marka qofku ama nooluhu uga helo tamar afraad waxa uu yahay soo saaritaanka waxa loo yaqaan beelka kaas oo loo adeegsado in lagu burburiyo wixii duxo marka qofka ama sidoo kale nooluhu cunay si marka looga saaro qulka dhiigga si markaana aad loo yaray ugu dambeyntii qodobka shanaad wuxuu yahay kaydinta nafaqooyinka haddii ay ku badato waxa loo yaqaan glucose dhiig wareega waxa loo bedelaa maadada loo yaqaan glycogen taas oo haddii la baadana dib loogu celiyo glucose si marka uu helo noolu tamar ama awood sidoo kale waxaa la kaydiyaa macdanaha sidoo kale fitamiinada sidoo kale waxaa jira cudurro ku dhici kara beerka sida fatty liver disease oo ah in duxu marka ay ku badato beerka iyo sidoo kale cudur ku dhaca beerka loo yaqaano cirrhosis kaasoo marka dambe ku dambeeya waxa loo yaqaano kansar ku dhaca beerka tan kula dambe nabadgelyo